shirkadda gacanta ku haysa maareynta marsada Doorale ee SGTD ee bedeshay shirkadii DNP World ayaa maanta heshiis la gashay shirkadda la yiraahdo Pacific International Line waxaana munaasabada saxiixa heshiiskaasi lagu qabtay Singapore waxaana qalinka ugu dugay Djibouti heshiiskaasi gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi Mustafa Xasan ayaa ka waramaya dekada Doorale ama marsada SGTD oo hawlaheega shaqo ay dardar u socdaan sidoo kalena ay shaqadu si laba jibaarmayso tan iyo maalintii Khamiistii ee bisha February ahayd 22 oo ay xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti ay xiriirka u jartay shirkadii ajnabiga ee hore gacanta ugu haysay maamulka dekada Doorale maamulka iyo maareynta dekada Dooralena lagu wareejiyay shirkadda wadaniga ee SGTD oo ah shirkadda maareynta terminal container-ka Djibouti iyada oo maraakiib fara badan oo marabada Aasiya gacanka cadan ay jeclaystaan konteenerada ay xambaarsan yihiin in ay ku dajiyaan dekada Doorale ee marsada SGTD haddaba shirkadda SGTD ee gacanta ku haysa maamulka iyo maareynta dekada Doorale ayaa maanta heshiis taariikhi ah la saxeexatay shirkadda weyn ee dhinaca ganacsiga badda oo lagu magacaabo Pacific International Line waxaana qalinka ku kala duugtay heshiiskaasi gudoomiyaha gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi oo ah gudoomiyaha guddiga maamulka shirkadda cusub ee la wareegtay maareynta dekada Doorale ee SGTD iyo madaxa ugu sareeya shirkadda caalamiga ee ganacsiga badda ee Pacific International Line waxaana heshiisku ka dhacay maanta oo bisha Maaris tahay 5 sanadkan 2018 dalka Singapore heshiiskan ayaa dhigaya in shirkadda Pacific International Line adeegsato terminal container-ka Doorale iyadoo oo ku soo xidhaysa maraakiibta waaweyn ee qaadaya kumanaanka container ee loo yaqaan transportement waxaana sanadkii ay ka soo dejinaysaa dekada SGTD 300 oo kun oo container shirkadda Pacific International Line ayaa ah shirkadda ugu weyn caalamka ee dhinaca ganacsiga badda ama maritime-ka ee maraakiibta waaweyn ee nooca transportement maraakiibtaasi oo konteenerada ay xambaarsan yihiin ku dajiyo maraakiib yaryar oo sii qaada konteenerada waxaana la aasaasay shirkaddani sanadkii 1967 heshiiskan ayaa door muhiim ah ka galaya dardargelinta kaabayaasha marsooyinka ee dalkeena wuxuuna heshiiskani qayb ka yahay higsiga ah in dekada SGTD ay qaadi karto cadad fara badan oo konteenero ah sidoo kale Jamhuuriyadda Djibouti ayaa sii wadaysa in ay ku soo xidhaan maraakiibtaasi caalamiga ee transportement ee qaada kumanaanka konteener marsooyinka dalkeena wadaba isku geeyo waxa Djibouti ka go'an in ay kor u qaado dekadaha fara badan ee ay leedahay iyadoo oo ka faa'iideysanaysa goobta istiraatiijiyadeed ee badhigay